tafsiirka suuradda asharax ama alam nashrax waa suuradda 94aad tartiibta suuradaha qur-aanka waa suurad maki ah waxay ka kooban tahay 8 aayadood 27 kelimadood iyo 102 xuruufood waxay ka hadlaysaa suuraddan nimcooyinka uu allah subxaana wa tacaala uu siiyey iyo sida nebigeena moxamed sallallahu calayhi wasallam kor ugu qaaday magaciisa nala faham micnaha suuradda بسم الله الرحمن الرحيم magaca ale ayaan ku bilaabayaa allahaasoo naxariista naxariis guud iyo mid gaarba ألم نشرح لك صدرك soomaanan waasicinin nebi moxamedow sallallahu calayhi wasallam adiga laabtaada ووضعنا عنك وزرك soomaanan dejinin xaggaaga culayskaaga soomaanan kaa dejinin culayska nebi moxamedow sallallahu calayhi wasallam الذي أنقض ظهرك culayskaasoo ka shanqariyey adiga dhabarkaaga ورفعنا لك ذكرك soomaanan kor yeelin sheegidaada iyo xusidaada iyo magacaaga فإن مع العسر يسرا culayska la jirkiisa waxaa ahaaday fudeed إن مع العسر يسرا culayska la jirkiisa waxaa ahaaday fudeed فإذا فرغت فانصب goorta aad ka faaruqdo arrimahaaga adduun وإلى ربك فارغب u istaag cibaadada rabbiga xaggiisa keliya rajay damcaaga keliya xagga rabbigaaga ha ahaado ugu dambayn si aysan ku dhaafin barnaamijkan taxnaha ah tafsiirka suuradaha hoose nagu soo bir subscribe saar youtube-keena hana ilaawin tiktok-gana falow inaad soo dhahdo allahuma taqabbal siyaamana wa salaatana wa qiyaamana wa qiraa'atana wa ducaa'ana allahuma aamiin